kulanti wanaagsan sheekadan ciwaankeedu waa cadka rag isku raaco wiilwaal waxa uu ahaa nin abaanduule ah oo badi ay ka baqaan ragga uu maamulo sidoo kale waxa uu ahaa nin biilkadayn iyo shaaribaad badan maalin ayaa waxa isugu yeeray kooxdii uu madaxda u ahaa waxa uu ku yiri biri nin kasta oo idin kamid ahi waa inuu keenaa cadka rag raaco kooxdii oo nin kasta gaarkiisa u yaaban yahay ayaa madashii ka dareertay oday ragga kamid ahaa ayaa gurigii ku noqday asaga oo maskaxdiisu rogroganayso hadalkii maanta ee wiilwaal inantiisu curad oo ahayd gabadh xilo qabad ah ayaa dareentay murugada iyo walbahaarka ku yiri ninkii wiilwaal ahaabaana yiri biri hal keeno cadka rag isku raaco anna ilaa iyo hadda ma garanayo cadka meesha iyo miisiga uu yaalo gabadhii inta ay garabka ka kacday aabaheed ayay soo qabatay xoolihii reerka midkii ugu liitay inta ay kolkiiba biraysay bay qashay oo hunguriga ka soo saartay markaas bay aabaheed ku tiri aabo wiilwaal cad la'aani ma hayso oo kolley waxa buu uga jeedaaye cadka uu sheegayaa waa hunguriga eeho ugeey ama u qaad odaygiiba odaygiiba intuu yaabay wuxuu inantiisii ku yiri abaanduulaha haddaan hunguri u geeyo waa ceeb oo uu dilayaaye cad cagaanan keen oo cad hagaagsan oo ula jeedo waxay aabaheed ku qancisay inuu hunguriga qaado oo aroortii madasha la tago inta uu odayga cadka soo siday wuu qariyay wuuna cabsanayay kolkii uu wiilwaal soo galay goobtii kulanka ahaabu nin walwalka cadka aad sido kor u qaad oo xeedhadan iyo hortaala ku rid ninkii waliba cad uu siday jeeni garab iyo waaxo xoolo shilis laga soo jaray buu xariiridii dul dhigay odaygii oo isgodayo ayaa xeedadii kor yimi kolkaas ayuu si hoos ah xeedadii u dul dhigay hungurigii wiilwaal oo kolkii uu arkay cadka uu sidoo kale odayga ayuu sare u kacay waxa uu yiri kor u qaad cadka asido oo dadka tus kolkii la laadhay ama la qaadi waxa uu sida u hunguri yahay qof kasta oo madasha joogay wuxuu siri waa la dilayaa odayga oo hunguri ayuu la shir yimi si haleela ayuu odaygii u yiri gabar yaroo aan dhalay oo waaya aragnimo la'aan hayso ayaa cadkaani igu soo rartay wiilwaal baa hungurigii kor u qaaday si uu u tuso dhammaan raggii madasha joogay wuxuuna ku yiri cadka rag isku raaco ama isku calooshaa waa hunguriga gabadhaas yar ayaa garatay oo dhammaantiin idin caqli dhaantay sheekadeena maanta waa naga inta saaxiibayaal nabadgelyo bugaana ku xirnaada mahasanidiin